Maxkamadda ciidamada qalabka sida ee qaybta lixdanaad ayaa xukun dil ah ku xukuntay askari ka tirsan ciidamada nabad sugidda magaalada Baydhabo kaasoo maxkamaddu ay sheegtay in 9kii bishii lixaad ee sanadkan aynu ku jirno si bareer ah u dilay Allah u naxariistay marxuum Maxamed Xasan Maxamed. Goobta xukunka ka dhacay oo ay goobjoog ka ahaayeen ehelada marxuumka la dilay iyo taliyaha ciidamada asluubta maamulka Koonfur Galbeed ayaa waxaa xukunka maxkamadda ku dhawaaqay gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee qaybta lixdanaad gaashaanle dhexe Aadan Abuukar Maxamed. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillahi Rabbil Caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah. Maanta oo taariikhdu tahay 20 bishii 7 2019 maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad waxay ku dhawaaqaysaa xukun dil ah. taariikhdu markay ahayd 18 bishii 7 2019 saacaduna ahayd 10kii subaxnimo maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad waxay u fariisatay dacwad qaabeedkii loo haystay eedeysana gacan ku dhiigle Dable Nisa Cabdiraxmaan Cali Xasan Cali oo loo yaqaan Sigow ina Awliyo Maxamed Axmed 40 jir ah ku dhashay Bakool degan Baydhabo xaafadda Howlwadaag ka tirsan ciidanka nabad sugidda gobolka Baay kaasoo xafiiska xeer ilaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad ku soo dacweeyay in uu si bareer ah oo ula kac u dilay taariikhdu markay 9kii bishii lixaad 2019 marxuum la oran jiray Maxamed Xasan Maxamed oo loo yaqaan Waydaan ina Xabiibo Cali Axmed 40 jir ahaa kadib markii uu hal xabo bastoolo TT ah nambarkeedu yahay 325 oo beerka ugu dhuftay uuna isla markiiba ku geeriyooday isbitaalka guud gobolka Baay. dood dheer kadib maxkamadda markay aragtay eedii soo gudbiyay xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad oo ku xusnayd aayadda 178 suuratu al-Baqara aayadaha 33 suuratu al-Maa'ida qodobka 434 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 19 xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida markay aragtay qiraalka eedeysana ka hor qirtay garsoorka hortiisa inuu asagoo dilay marxuumka kuna dhuftay hal xabo bastoolo TT ah kadib markii uu dhex maray muran horkeenay maxkamadda horteeda midna u weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda horteeda si buuxda u cadeeyeen eedeysana Dable Nisa Cabdiraxmaan Cali Xasan oo loo yaqaan Sigow uu gacantiisa ku dilay marxuum Maxamed Xasan Maxamed Waydaan kadib markii uu hal xabo bastoolo TT ah ugu dhuftay beerka uuna isla markiiba ku geeriyooday isbitaalka Baydhabo. markay aragtay sawirka laga qaaday meydka marxuumka Maxamed Xasan Maxamed markay aragtay qoraalka dacwadda lidka ku eedeysana uu maxkamadda u soo qortay dhibane Xasan Maxamed Yare oo ah aabaha dhalay marxuum Maxamed Xasan Maxamed Waydaan markay dhageysatay doodda qareenka oo ahayd in eedeysana loo naxariisto loona eego sifaalaha dembiga fududeeya maadaama uu qirtay dembigiisa lagu soo eedeeyay sidaas darteed maxkamadda waxa uu cadaatay in dambiile gacan ku dhiile Dable Nisa Cabdiraxmaan Cali Xasan Cali Sigow uu yahay dambiile galay dambiga lagu soo oogay waxayna ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuum Maxamed Xasan Maxamed Waydaan. cidii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxa uu furan inay rafcaan ka qaataan wabillahi tawfiiq. Nuur Xasan Maxamed oo ah walaalka la dhashay marxuumka la dilay ayaa isna la hadlay warbaahinta wuxuuna sheegay inuu ku qanacsan yahay xukunka ay riday maxkamadda ciidamada qalabka sida ee qaybta lixdanaad ee magaalada Baydhabo. taliyaha xabsiga dhaga Baydhabo salaanka dib mayba ku warbiifaday anoo magacayga Nuur Xasan Maxamed go'aanka maxkamadda ku qaadatay arrintan oo dil ka hayti mayba laha anoo walaalkay dil Maxamed Xasan Waydaan ka dhalay ahaa xukunka maxkamadda ka ganacsana mayba ku riday shariicada islaamka Maxamed Cabdiraxmaan Cabdulle TV-ga Soomaali Cable magaalada Baydhabo.